السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan maanta aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo aniga iyo walaalahayga ila midka ah ee hablaha araga naafada ka ahba inaan uga soo qayb galo munaasabadan quruxda badan ee sida heerka sare loo soo agaasimay. waxaan halkan uga mahad celinayaa xukuumadda uu garwadeenka ka yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, wasiirada xisbiyada qaranka, ururada madaxa bannaan, abwaanada, aqoon-yahanada iyo madaxda jaamacadda dhamaantoodba aad baad u mahadsantiin. inta kadib haddii aan iskiin baro magacaygu waa Xamdi Cabdi Sogsog, waxaan ka mid ahay gabdhaha araga naafada ka ah ee ku nool caasimadda Soomaaliland Hargeysa. sidoo kale waxaan ka mid ahay suxufiyiinta madaxa bannaan ee ka howlgala isla caasimadda Hargeysa gaar ahaan telefishinka Badda Cas. anigoo ku hadlaya afka hablaha araga naafada ka ah ee qurba joogta ah iyo qaar ka mid ah qolqol joogta. markii aanu tabnay dareenay isla markaana si xeel dheer u lafagurnay waayaha ku gadaaman haweenka iyo caruurta araga naafada ka ah, waxaanu go'aansanay annagoo u marnay nidaamka sharciga ah inaanu maanta hortiina kaga dhawaaqno urur aan dawli ahayn, siyaasi ahayn, macaashdoon ahayn, una adeegaya caruurta iyo haweenka araga naafada ka ah. ururkaasoo la yiraahdo Tough Blind Girls loona soo gaabiyo TBG. ururkani waxa uu leeyahay maamulkii kala sareynta iyo dastuurkii kala hagi lahaa xubnaha ururka. waa markii ugu horeysay urur haween araga naafada ka ah ay leeyihiin laga aasaaso geyga Soomaalida, iyagoo haweenkaasi dhammaantoodba ah dhalinyaro araga naafada ka ah. ururkani taageero kama helo dawladda, kama helo ururada madaxa bannaan, kama helo ururada caalamiga ah sida EU-da. muddadii 30 sano ahayd ay Soomaaliland jirtay, intii aanu garaadsanay maanu maqal haween gaar isu taaga una dooda sidii jiilka ka dambaysa iyo naftoodaba ay horumar ula tiigsan lahaayeen. waxaanu maanta marti idinka nahay oo idinka fadhinaa garab istaagiina tabantaabaday laba gacmood tamar ku yeeshaa. dadka aan u adeegayna maaha hadaluun, balse maanta waxa goobta inagula sugnaa 3 caruur oo araga naafada ka ah. 3 caruurba waa walaalo, waa 2 gabdhood iyo wiil, 3dooduba araga ayay naafada ka yihiin. nasiib darro dhaqaatiirta dalku waxay sheegeen inaan dalka gudihiisa waxba lagaga qaban karin. haddaba bulshada qaybaheeda kala duwan, mulkiilayaasha, ganacsatada, ilaha dhaqaalaha, madaxda dawladda, xisbiyada qaranka iyo ururada madaxa bannaan dhammaantoodba waxaanu ka codsanaynaa inay garab nagu siiyaan sidii aan u garab istaagi lahayn ubadka laxaad kale ee waliba baahiyaha kale. sidoo kale waxaan codsanay goobaha farsamooyinka gacanta inay simaan ubadka iyo caruurta la barayo xirfadaha kala duwan, kuna daraan haweenka araga naafada ka ah si ay u helaan horumar farsamo gacmeed iyo horumarada kaleba. waxaanu doonaynaa oo codsanaynaa oo martiidin ka nahay in la noo furo albaabada kala duwan sida xarumaha dawladda, cisbitaalada, goobaha waxbarashada, shaqooyinka gaar loo leeyahay. haddii ballanqaad naloo sameeyana waxaanu rajaynaynaa in sidiisa loo oofiyo. waxaanu mar walba u taaganahay oo diyaar u nahay sidii aanu bannaanka u soo dhigi lahayn dadka la ilaaway ee guryaha ku qarsoon, ee la hakraday, ee qaarkood halka quraacda loogu geeyo cashadana loogu geynayo gobolka ugu dhacayo, ee la xad la'aantii kale ay u dheer tahay inay moraliba u dhintaan oo maskaxda ay ka dhimato marka qofkii isla haduu guriga ku nagaado uu waayo dhaqdhaqaaqun. qof cuna oo cabba oo seexda xoolaha un baa lagu yaqaanaa, laakiin qofka bini'aadanka waa looga qurux badan yahay inuu cuno oo cabbo seexdu soo tooso. qof walba wuxuu u baahan yahay mustaqbal, wuxuu u baahan yahay horumar, wuxuu u baahan yahay garab istaag. naafada iyo xabaaluhu waa 2 albaab oo furan oo lagu soo biiri karo. marka ugu dambeyntii waxaan rajaynayaa inaan walaalaheena garab istaagno.